waxaa inugu soo dhow foodana inugu soo haysa bishii barakaysnayd ee ramadaan. allana tabaaraka wa tacaala waxaa ka mida nicmooyinkiisa iyo galladihiisa aan la koobi karin inuu u sameeyey addoommadiisa wakhtiyo ay cibaadada iyo taacada ku tartamaan, isagoo addoonka laga rabo xilli walba iyo bil kasta iyo sannad walba iyo xilli walba inuu ilaahay caabudo, ayaa haddana waxaa laynoo sameeyey wakhtiyo gooni ah oo loogu talagalay inaan gallo tartan siyaado ah laga faa'iidaysto. bishii barakaysnayd ee ramadaan baa ka midoo inugu soo aadan. waa xilli rabbi tabaaraka wa tacaala uu dhexdiisa dhigay baraka iyo khayraad fara badan. waa xilli rabbi tabaaraka wa tacaala ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh hiba loo siiyey, hiba qaali ah oo ilaahay nebi maxamed ummaddiisa uu siiyey weeye salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sidaas daraaddeed wakhtigaa qiimaha badanee inugu soo socda ee muddada kooban ay ka laaban tahay inaad ku baraarugto weeye una diyaar garowdo saaad uga faa'iidaysan lahay. shayga ugu muhiimsanee maanta ku hor yaallana kaa isagaa wa naftaada ma ah, ganacsigaagana ma ah, xoolahaagana ma ah. shayga ugu muhiimsanee maanta miiska kuu saarani waa ramadaan seed uga faa'iidaysataa waay. dhowr qodob aan tilmaanno oo loo baahan yahay intayna bishu soo gelin inaynu meel saarno. qodobka koobaad iyo tilaabada koobaadi waxay tahay inaynu ogaanno qiimaha iyo qadarka ay leedahay bishani leedahay. jaaniskani intuu la egyahay iyo qiimaha iyo qadarka uu leeyahay inaga mudan yahay inaynu ogaanno waa laga maarmaan. leanna kolba shaygu sida uu kuugu qiimaysan yahay ayaa dadaalka aad ku bixinaysaay uu noqdaa. waxay nagaga filan qodobka isagaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh malakul jibriil baa u yimid, markaasuu wuxuu ku yidhi ha fogaado oo naxariista ilaahay ha ka durko, ha laga durkiyo ruux ramadaan u soo galay oo ramadaan dhammaado korkiisa ku dhammaaday asagoon loo dembi dhaafin. wax loogu dembi dhaafo muusan la imaanin. soonkii bisha, salaadihii, sadaqadii, cumradii, qur-aan akhriskii, cibaadaadkii dembi dhaafka laga helayay kamuusan faa'iidaysanin. meelahaasuu taagtaagnaayo wakhtigiisa ku lumiyey. jaaniskiibaa dhaafay. ilaahay agtiisa muxuu ku leeyahay? waa dayro wey kaas, ilaahay waa dayriyey, waa nin la fogeeyey. sababtuna maxay tahay? rabbi tabaaraka wa tacaala hadduu nicmo ku guddoonsiiyo ku siiyo ood nicmadiisa ka shukrin weydo oo siday tahay aad u guddoomi weydo, natiijadu waxa weeyaan walain kafartum ina cadaabii la shadiid waay. in markaas lagu ciqaabo lagu fogeeyo waay. sidaas daraaddeed qodobka koobaad inaynu ogaanno bishan inaysan bilihii kale la mid ahayn, wakhtigeedana uusan ilala noqonin sida sanadka intiisa kaloo kale way ka duwantaha, wayna ka soocanta. waa qodob iyo tilaabo muhima wey. qodobka labaadii waxa weeye ee mudan inaynu baraarujinno in muddada gaaban ee bisha inooga laaban aad ku ducaysato inuu ilaahay ku gaadhsiiyo oo caafimaad kugu gaadhsiiyo, nabadgelyo kugu gaadhsiiyo. sidaasi waxaa ahaan jiray akhyaartii iyo salafkii inaga horreeyey ridwaanullaahi calayhim. 6 biloodoo ramadaan ka horraysa ayay ilaahay weydiisan jireen ilaahu ramadaanna gaadhsiiy. waa jaanis weyn. inaad gaadhi doontana ma hubtid. imisaa walaalaheen ahaa oo ramadaankii hore inala soomo, inala salaado, inala cibaadaystay oo jaaniskan mar labaad aan la siinin. adigana waxaa dhici karta inaadan gaadhin. haddaad gaadhana waxaa dhici karta ka ku xiga inaadan gaadhin. sidaas daraaddeed waa in aad ilaaha weydiisato inuu ku gaadhsiiyo bishan adoo nabad qaba, ammaanna ku siiyo. qodobka saddexaadii wuxuu yahay bishu markay dhalato nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inaad ducaysato iyadana. oo wuxuu ku ducaysan jiray nabigeennu sal alla alay wasalam ducadaan sheegnay, allahu akbar
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان إله بيشا نوغو دالي إيمان يا أمان نبتقلية يا إسلام توفيق أدنا وافتشيسو waxaad jecesheed raali ka tahay markaas wuxuu dhihi jiray bilay rabbiga iyo rabbigay waa Allah tabaaraka wa taala ducadaasi qiimaha ay leedahay waxa weeye bishan bilatay kugu soo aaday in khayrkeeda lagu waafajiyo ilaahay ku waafajiyo kuna tuso inaad samaysana ku fududeeyo ayay ducadu ku saabsantahay qodobka xigaayo wuxuu yahay bishii baad soo gaadhay way noo bilatay nabad iyo nabadgeliyaad ku soo gaadhay caafimaad baad haysataa ilaahay tabaaraka wa taala inaad nicmada uga shukrido ramadaan inaad soo gaadhay adigoo nabad qaba maxay shukriga nicmada rabbi aad garatay ee aad ka shukriday wuxuu keenayaa in siyaado lagu siiyo la in shakartum la azidannakum wa lagu kordhin nicmadii baad garatay waa nicmad diineed waad ka mahad celiso ilaahay baad u aqoonsatay allah tabaaraka wa taala nicmooyin kale diineed buu kuugu darayaa kuugu siyaadinaya sidaasi waa quraanka kariimka sidoo noo tilmaamay oo nicmo markaad ka shukrido tu kale jiidanaysa oo wadataa markaad taa ka shukridana kuwa kale wadataa oo jiidanaysa waxa kada nicamku waa iswataan macaasida iyo dunuubta iyo kufraankuna waa iswataan marka shukri ilaahay nicmadiisa ka shukriya qalbigaaga ku weynaato qodobka xigaayo wuxuu yahay ee baraarujinta mudan bishii inoo soo socoto bishu markay dhalato iyo dhalashadeeda iyo soo dhaweynteeda waa inaan ku faraxno waa inaan bishaaraysano waa marti aan aad u jeceshahay waalidka oo waqti dheer ka maqnaa xaaskaadiyo waqti dheer aydan is arkin kulanka kuugu hormaysa kulmaysaan soo aad uma faraxsanid la shaka fi dalik tabtahij sidaas daraadeed waxa ka qiimo badan waxa soo dhan bishan oo nabad kuugu soo gashay marti qiimo badan way oo ku timid waa inaad marti soor fiican marti soorto soo dhawayso kuna faraxdo imaanshaheeda nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi markay bishu soo galayso saxaabadiisu u bishaareen jiray wuxuu dhihi jiray bishii ramadaan baa idin timid oo soo gashay waa bil baraka iyo khayr badan khayrkeeda iyo barakadeeda la badiyay allah tabaaraka wa taala soonkeeda ayuu waajib idin kaga dhigay iridihii jannada ayaa la furay iridihii jaxiima iyo naartana waa la xidhay shayaadiinta kuwoodii khayrka darnaaye madaxa adkaaye sharka ku mudxay ayagana waa la xidhxidhay waa la katiinadeey habeen baa ku jira bishaas ka khayr badan kumbilood ruuxii khayrka habeenka laga qadiyana isaga ayaa xaqiiqo wuxuu yahay ruuxa qaday oo wanaag oo dhan ka qaday nabigeenu waa u bishaareen jiray marka saxaabada war wax weyn baa yimid war ka gacan fadhiga war baraaruga marka inaad bishaaraysato ood ku farxdo qodobka xigaayo wuxuu yahay loo baahay inaan ku baraarugno bishan waa inaad qorshayso oo aad nadaamsato dejisato qaabkaad uga faa'iideysan lahayd bini aadamku kama soo haro takhtiidka iyo qorshaha iyo nadaaminta kama soo haro habeenada iyo maalinta bishu ka kooban tahay saad uga faa'iideysan lahayd qorshaheeda deji kadibna yuusan jaanisku si fudud kugu dhaafin waxay kugu kaalmaynaysaa in aad sidaad rabtay wax u hesho bitawfiiq illaahi tabaaraka wa tacaala miaal maalan haddaan tusaale idin siiyo waxaad rabtaa inaad bisha ramadaan aad qur-aanka dhammayso 5 goor waa go'aan soo ma go'aankaasi waa inaad u dejiso waqtigiisii maalintii imisa goor baad rabtaa inaad fadhiisato qur-aanka akhrido iyo habeenkii muddo walbana intee juz baad rabtaa inaad akhrido qorshe degan oo isku habaysan oo nidaamkii go'aanka dejisay waafaqsan ayaa markaa ku soo baxaya laakiin si fawdo oo hamaji hadaad bisha isaga gasho barnaamij kale oo qorshahaagaba ku jirin baa ku kaxaysan doonta kadibna bishii waaba dhamaatay qodobka xigaayo wuxuu yahay go'aan
qalbigaaga ah iyo doonitaan dhab ah qalbigaaga ha laga arko allah tus tabaaraka wa tacaala qalbigaagana ha ka arko inay go'aan kaa tahay inaad bishaa faa'iidaysan rabto daaca inaad rabto aakhira inaad rabto inaad ridihiisa raadinayso go'aankaa qalbigaaga ha lagu arko maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala addoommada wuxuu wax ku siiyaa kolba qadarka go'aankooda iyo niyadooda xadiidkii nebiguna waa kii ahaa innama alacmaalu binniyaat niyadaada iyo qasadkaaga buu alla fiirinaya xadiidkii waa kii ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yandur ilaa quluubikum waacmaalikum allah meeshuu kaa fiirinaya waa qalbiga maxaa qalbigaaga ku jira haddaad rabto inaad wakhtiga kaga baxdo laalaab kaga baxdo oo aad wareegaysato ama adduunyadaadaba u badato qalbigaaga hadduu sidaa ku jiro wixii qalbigaaga ku jiray baad ilaahay ka sugi tabaaraka wa tacaala biidni illaahi tabaaraka wa tacala saas daraaddeed go'aan oon shakiya laalaab ku jirin oo saadiqa ilaahay ula imo faidaa cazama almru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu man sadaqa allaha sadaqahu tabaaraka wa tacala ruuxii ilaahay run kula dhaqma ilahay run buu kula dhaqma go'aan dhawa marka la imo qodobka xigaay wuxuu yahay bishii baa soo socota intaynan bishu gelin waxaa la rabaa inaan ku dadaallo sidii aynu u baran lahayn axkaamta bisha ku saabsan u fahmi lahayn see bisha looga faa'iidaystaa soonka iyo axkaamtiisa salaada taraawiixda iyo axkaamteeda sadaqa haddaad baxsanaysa iyo axkaamteeda haddaad cumraysanaysa iyo axkaamteeda qur-aanka akhrintiisa iyo aadaabtiisa waa inaad barato ood haddaba ku dadaasho qodobka ugu dambeeya ee mudan inaan tilmaanno isagana waxa weeye bisha soo gelitaankeeda ka hor markay soo gasho dhammaadkeeda waxaad ku dadaashaa inaad toobad keento ilaahay u soo laabo wixii dembi aad geli jirteed caadaysatay joojiyo ka go' wixii horay kaaga dhacay ka qoomamood oo qalbigaagu ha ka gubto go'aanso inaadan dib dambe ugu noqonaynin ilaahay dartiina u sameeye markaad saa u toobad keento toobad rasmiya aad keento qalbigaaga wixii daxal fuushay mugdigii fuulay wasakhdii fuushay kulli waa la daahirinayaa qalbigii waa dhalaalayaa waa xoogaysanayaa socdaalka uu xagga rabbi ugu jiro ayuu wuxuu u helayaa awood u helayaa daacadii buu ku sabrayaa qur-aanka akhriskiisu ma dhibayo salaadda intii la taagnaadaba waa taagnaanaya waa sabrayaa soonka iyo dhibkiisa waa ku sabrayaa leanna waa qalbi xoog badan oo iftiimaya waay iimaan xoog badan baa ku jira saas daraaddeed baa nabigeennu wuxu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh addoonka markuu dunuubta galo qalbigaa wasakhoobo daxal fuusha markuu soo laabto ka soo laabtana qalbigiisa waa la soofeeyaa waa la sifeeyaa waa la daahiriyaa soo maaragti marka qalbiga daahiri saan soo sheegnayba meesha ilaahay kaala mucaamalonaya waa qalbiga haddaad aragto adoo caajsan cibaadadii kugu adag tahay jiitabayo cag jiidaaya rafaadsanoo cibaadaysan la aafadu xaggee ka socotaa qalbigaagay ka socotaa kan khayrka u hormaray ee khayrkii ka horeeyana arrintu waxay ka socotaa qalbigiisay ka socotaa bacda tawfiiq illahi tabaaraka wa tacala alaa wa ina fi ljasadi mudqa إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب marka qalbiga hagaaji nadiif uqdada ka saar arada ka saar xumaanta ka saar shahawaadka jacaylkooda ka saar shubahaadka ka saar qalbiga nadiifi wixii galayna ka toobadkeenoo daahiri si aad bishan si qiimo badan uga faa'iidaysato daacaadka rabbiga kala gadisanna aad qaybtaada uga qaadato khitaamka waxa weeyaan iyo gabagabadu waxaad isku daydaa acmaasha bishan taalaay way fara badan tahay mid walba qayb ku darso soonkii waad soomanta salaadiina waad salaadaysaa sadaqada wuxuun ku darso haddaad cumraysan karta gal qur-aanka akhriskiisa ka qayb qaado salaadii habeenkii ka qayb qaado
khayroon afurinta dadka sooman ka qayb qaado meel kaliya ha isku koobine meel walba inay lagu kugu jiri karto isku day waxayna nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh acmaal fara badan oo kala duwan markuu sheegay ruux hal maalina inta isla sameeyay janna loo ballan qaaday buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu calayh marka majaal walba khayrkiisa iyo wanaaga yaala inta ugu badaneed ka qaadan karta ka qaado si ilaahay ku saamaxo tabaaraka wa tacaala qoortaada naar uga xoreeyo jannadiisana kuugu waajibiyo iyo ridihiisa tabaaraka wa tacaala